adiga WHO ma tahay maxaa ku geeyay nambarada iyo dadka dhimanaya iyo kuwa ku soo kordhay shaqadaada ma ah dad fara badan waxa energy-gooda iyo taaqadooda iyo waqtigooda ay ku luminayaan wax aan shaqadooda ahayn biliis waxa shaqadaada ahayna ku mashquulin adiga isku mashquul adiga isbaro meeqa adiga emotion ku nooshahay hadaa ku weydiiyo percentage ma ka jawaabi kartaa emotion xun meeqa ku nooshahay ma ka jawaabi kartaa emotion iyo tabiicad yani caatifad wanaagsan iyo qeyro wanaagsan meeqa maalinka 40 saac ku nooshahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadka iyo coronavirus maxaan ula jeednaa dadka iyo coronavirus waxaa yimid xanuun ilaahay subxaanahu wa ta'aala rajaynayna in dunida ka qaado dhibkiisu naga sii dhamaado insha Allah coronavirus loo yaqaano saameyn fara badan yeeshay saameyn kala duwan ku yeeshay dadka iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo dawladaha iyo dhinac walba saameeyay xataa cibaadadii masaajid beenan aadin dhacdadaas marka dhacday waxaan uga socdaa macnaha waxa ka dhashay macnaha corona waxa ka dhashay waxyaabo fara badan ka dhashay ma rabo dhinacyo fara badan oo kamid ah ka hadla hadda waxaan rabaa inaan xooga saaro kaliya corona nafsan xaalad nafsaaniyad ahaan dadka saameynta ku yeeshay iyo guriga joogi waxa ka dhashay dhanka nafsaaniyad ahaan waxa corona uu keenay in dadkii murug fara badan iyo cabsi fara badan iyo walwal fara badan uu ku beermo waxa inta u dheer media asagana noqday aalad laga baahiyo cabsida kaliya sheegay inta u dhimatay aan sheegayn inta sida badan aanan ka hadlayn ama hadalhayn u bumbuunin dadka caafimaad ka soo kacay ayadoo wada ognahay in la sheegay dadka u dhimanaya inay aad uga yar yihiin in dadka ka soo caafimaad ka soo roonaanay xooga lama saarayo cabsida qayb ka qaadanaya wararka iyo fariimaha social media la isku dhaafsanayo ee WhatsApp-ka iyo Messenger-ka iyo la isugu dirayana iska badaa ay u tira badan yihiin marka dadka waxay bilaabeen fara badan inay cabsadaan oo walwalaan qofku markuu cabsado walwalo ma yaqaan soo u tasarrufo ma yaqaan wuxuu sameeyo cabsidaasi walwalkaas waxa ka dhalanaya in hormoonaadka jirka iyo qaabka isula falgalayay ay khalal u ku yimaado iyo ismaan dhaaf taas waxay keenaysaa in diyaar u ahaato xanuun walba cirra xataa inay ka soo baxdo cabsidaas faraha badan waxa ka dhala dadkii inay raadiyaan maxaa sameeynaa bal maaragtay sidee yeelnaa qofkii emotionskiisa iyo caatifadiisa qeyraysa markay isku dhaxyaacdo waxa inta badan ka dhalanaya dhaqamo oo maaragtay uu sameyn jirin ama dhaqamo aan sax ahayn ayaa ka dhalanaya ka imaanaya oo dadka ku hareeraysan kula dhaqmaya taas waxa keenaysa isku dhac iskhilaaf iyo ciriiri iyo dagaal fara badan waxaan leenahay marka corona haddii dadka qaar uu u saameeyay dhanka kale waxaan haysanaa dad degan corona markuu yimid guriyaha jooga la yiri qalni waraqad qaatay haday jaamacada wax dhiganayeen wax akhris iyo wax baarid iyo isii horumarin galay haddii kale self development iyo cashiro oo naftiisa ku horumarinaya galay dadka qaar proposal leeba diyaarinayaan maxaa corona kadib fursad soo bixi kara sideen fursadaas uga faa'iideysan karaa maxaan sameyn karaa qorshuhu wuxuu degsanayaa qorshaha ganacsiga corona markii uu dhamaado kadib uu gali lahaa dad hadda ku tala jira sidee shaqadaada fatro kadib aad maaragtay uga madax banaanaan doontaa oo adiga shaqo aad leedahay u rangareyn doontaa oo wadan doontaa dadka qaar ku fakaraya dadka qaar ilmahoodii iyo lamaanayaashoodii la nool nabadna kula nool iyo deganaan halka dadka qaar dhibaato iyo culays iyo walwal uu ka haysto ama qaylo iyo buuq joogta ah gurigi fargeeto duulaysa iyo bakeeri jabaya iyo digsi gubanaya u dhaxayaan dhibaatada waxa keenaya waa sida aan u qaabilnay dhibaatadan aan ku talagaleynayna qabsatay oo asaas ay u tahay taasina diyaar garow la'aanta marka waxaan leeyahay diyaar ahow corona iyo la'aantiisba weligaa waa inaad diyaar ahaato maxaan ka wadnaa waa inaad taqaanid sida aad horta naftaada ula dhaqmi lahayd waa inaad taqaanid waxay ku fakarayso waa inaad taqaanid dareemaha ay dareemayso waa inaad taqaanid jirkaaga baahiyihiisa jirkaagana siinu u baahan yahay rest in relax inuu rabaa iyo deganaan wuxuu u baahan yahay in cunto fiican aad siisid wuxuu u baahan yahay inaad ka ilaalisid
waxyaabaha xun ee qashinka laga buuxiyo. hada 10 nutrition ma joogno marka mar inaa hoos sii karo. afkaartaada waxay u baahan tahay inaad la socotid 50 ilaa 60 kun oo fikrad ayaa maalinkii qofka bini'aadamka maskaxdiisa ka guuxda la sheegaa. iska daa kuwa yar aad ku baraarugtid adiga ka badana ka guuxaysa see u manage gareynaysa afkaartaas. طيب dareemahaaga waa cabsatay maxaa keenay cabsadaan waa inaad garan karto. waad walwashay maxaa keenay walwalkan. waa xanaaqday maxaa keenay xanaaqan. mararka qaar meel sokan ku dhignaa ilmaha qeylada iga xanaajiye maya ilmaha qeyladooda ma ilmaha qeyladooda ka hor maxaa ku fakaraysa. heblaaye hebel oo shalay maahan daraad hadal aadan ka helin kugu tiri ka fakaraysay markaas cunugaaga qeylinayo hooyo ama aabe wajida kaas inta xanaaqday asi xad ka baxo ka badbadaysa wala fal gashay ama cunugi dharbaaxday ama wax jabisay kadib waxa la ilmahana dhibayaaq banaanka guriga soo baxa maskaxda qabsanay war maxaa kugu dhacay guriga uga soo tagay wallahi sababtoo amaada garanin sida akow naftaada iyo dareemaheeda wala dhaqmi lahayd sida dareensan ugu noolaan lahayd. dhanka kale ma taqaanid dadka kugu hareeraysan saa wala dhaqmi lahayd ma taqaanid maxaa la yiraahdaa xiriirka kaala dhaxay adiga ilmaanaaga xiriirka kaala dhaxay adiga ilmahaaga waxaas ma taqaanid. taas marka waxay keenaysaa ayadana in isku dhac fara badan u dhankaas ka yimaado. ilmahaaga waxa u hanan kar laada waxay tahay waxa idin sheegay halkan qaacido muhiim ah an tahtamma bima yahtammu bihi man tahtammu bih. waa inaad danaysaa waxa uu danaynayo qofka aad danaysid. ilmahaaga waa danaysaa danay waxa ay danaynayaan ilmahaaga. maxaan ka wadaa geema may jecel yihiin ciyaaray jecel yihiin la dheel mararka qaar ka soo dhaxbax aabanimada ama hooyanimada ama macalinimada iyo weynida hoos u soo dag la dheel mararka qaar waxay danayaan jecel yihiin wax daawadaan siyaba kartoonka Soomaaliya ilmaha kartoon wanaagsan oo fiican la daawo waxa saalinaysa inaad waxa ay daawanayaan la hagtid ama u hagtid oo la manage gareysid. laakiin marka banaanka ka joogtid oo telefoon 4 saac ku hadlaysid oo America iyo Afrika iyo Europa isku xireysid oo ilmahaaga waqti aad u haynin hadhowti waxa ma maqlayaan qofnaha ku eedin. inaad danaysid qofka lamaankaaga waxa uu dareenayo haddii rabto dabeecadii ku ahaan haddii rabto wax adiga aragtidii ahaan laakiin mararka qaar yaa ka soo dhaxbax dabeecadaada gaarka ahayd la danayeen la kala shaqee la falgal waxa qofkan uu daneeyo. مثلا muuqaalo qaar uu jecel yahay jira la daawo waxyaabo qaar inuu akhriyo jecel yahay buugta qaar la akhri مثلا tusaale ahaan yani hadaan wax akhrino waayaba akhrintu waa muhiim. marka dadkii waxay noqdeen sidaas kala duwan. qof waa diyaarsanaa ilmihiisu fahamsanaa lamaanihiisu fahamsanaa lamaankiisu fahamsanaa ama gabaraha wiil ha ahaade qorshuu lahaa oo nolosha qorsha u degsan iskama soconin bitaali guriga jooga la yiri okay fursad waaye proposal qarin waraaqadiisa qabo qor wax diyaari qof kale ma diyaarsanayn sida daraadeed waxa dhacday inuu cabsado 24 saac miidiyihi iyo warbaahinta uu ku jeedo uu baarayo wax iyo intee la gaaray iyo intuu gaaray meeqa qof ku soo biirtay 20 kun oo gaaray sida inuu WHO yahay adiga WHO ma tahay maxaa ku geeyay nambarada iyo dadka dhimanaya iyo kuwa ku soo kordhay shaqadaada ma ah. dad fara badan waxa energy-gooda iyo taaqadooda iyo waqtigooda ay ku luminayaan wax aan shaqadooda ahayn. biliis waxa shaqadaada ahayna ku mashquulin adiga isku mashquul adiga isbaro meeqa adiga emotion ku nooshahay da ku weydi percentage ma ka jawaabi kartaa emotion xun meeqa ku nooshahay ma ka jawaabi kartaa emotion iyo tabiicad yani caatifad wanaagsan iyo qeyro wanaagsan meeqa maalinka 4 saac ku nooshahay maxaa ku kiciyo maxaa ku dajiyo dadkaan meeqa gadaal u soo laabo go back waxaad ku dadaashaa inaad adiga isfahantid dadka kugu hareeraysan aad fahamtid waana meesha ugu horeysa ee wacyi uu ka bilowdo. hana cabsanin waxaadna ogaataa mar walba wadaa jirta mar walba xalaa jira ma aha sida xaq loo sheegayo wax ama xaqiiqadana lagu soo muujinayo mar walba ma aha. marka hadda laga bilaabo waxa isku dayda hadii dadka uu corona qasay oo dabeecada ka dhumiyay oo murug fara badan dareemay oo cariiri ka dareemay guri jooga aad tahay waxa ogaataa waxa ka maqan fariintaadi nolosha ee raadso
adiga isbaro waqti isla qaado qalni waraaqad qaado qof ma tahay maxaa jeceshahay maxaa qor waxaas oo dhan qor waxba kaaga soo dhaxbaxay kadib waxaa barataa sida u yeelan lahayd fariin nololeed sida u qoran lahayd ujeedooyin aad rabto nolosha inaad gaartid qoro waa mahadsantahay